kulanti wanaagsan saaxiib yaa soo dhawaada qaybtan waxaan ku eegeynaa dagaal iyo duqeymo toos ah saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Shabeellaha Dhexe xalay waxaa ka dhacay dagaal iyo duqeymo toos ah oo la galay kooxda Al-Shabaab waxaana lagu soo waramayaa in Al-Shabaab xalay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe lagu naafiyay. Duqeyntan ayaa xalay lagu dilay tiro dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ka tirsan iyo horjoogyaal oo ku dhumaaleysanayay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Duqeyntan ayaa xalay waxay si qaas ah u dhacday degmooyinka Al-Kawsar, Aadan Yabaal iyo degmada Masaajid Al-Guduud. Masaajid Al-Guduud xalay duqeyntan ka dhacday ayaa imaanaysa kadib markii dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay maalmihii la soo dhaafay weerar dhabagal halkaas ku soo qaadeen taasoo Al-Shabaab ugu dambeyn u soo rogashay in muddo saacadaha ay la wareegaan gacan ku haynta degmada Masaajid Al-Guduud balse ugu dambeyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa halkaas ka saaray waxaana hadda Masaajid Al-Guduud ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana halkaas ka socda dhaqaaqyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka wadaan iyagoo xalay duqeyn halkaas ay ka dhacday sidoo kale waxaa xusid mudan in xalay duqeymo ay ka dhaceen qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Al-Kawsar ayaa lagu soo waramayaa in xalay duqeyn la beegsaday horjoogyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo tiro dagaalyahano ay wateen in halkaas lagu beegsaday sidoo kale xalay waxay duqeyn ka dhacday degmada Aadan Yabaal xalay waxaa lagu soo waramayaa in duqeyn culus ay ka dhacday maadaama halkaas Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay deegaano hoos yimaada degmada Aadan Yabaal ay isku soo urursanayeen balse waxaa xusid mudan in Aadan Yabaal ay ku sugan yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo iyaga halkaas u jooga dardargelinta dagaalka dhinaca kooxda Al-Shabaab walow saacadihii la soo dhaafay warar soo baxay ay sheegayeen in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xildhibaano iyo wasiiro oo maalmihii la soo dhaafay ku sii qulqulayay furimaha hore ee dagaalka ay xalay isaga soo wada baxeen maadaama ay halis noqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka sababtoo ah shalay ayaa ahayd markii sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Cadow Dibile oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose sarkaalkan shalay lagu dilay deegaanka Cadow Dibile ayaa waxaa toogtay mid kamid ah askarta ilaalada u ahayd oo balse xogo iyo baaritaano la sameeyay soo baxaya ayaa sheegaya in marka hore ninkan uu ka tirsaneen diiwaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu meelna kaga jirin balse uu iskala joogay ciidan lagu magacaabo Umar bin Khidaab oo ah guuto ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nasiib wanaag ninkan toogtay sarkaalka uu ilaalada u ahaa ayaa lagu soo waramaya isna in basla bartankii lagu toogtay labada midna waxa loo soo wada qaaday magaalada Muqdisho oo halkaas oo la rajeynayo in aasqaran lagu sameeyo magaalada Muqdisho in maanta la duugayay sarkaalkaasi balse taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa amar ku bixiyay in aan la duugi karin taliyihii guutada 14 Oktoobar Nuur Maxamed Gaaw Nuur Fari Allah u naxariistay lama ogo in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu rabo inuu ka qayb galo aaskaas loo sameeyo taliyaha Nuur Fari Allah u naxariistay iyo in baaritaano ay dhiman yihiin balse waxa laga wardhowrayaa wixii war ka soo kordha dowladda federaalka iyo baaritaanada ku aadan kiiskaas dilka ah ee loo geystay Allah u naxariistay taliyihii guutada 14 Oktoobar Nuur Maxamed Gaaw Nuur Fari isku soo wado duqeymihii xalay ka dhacay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa lagu naafiyay tiro horjoogyaal iyo dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku dhumaaleysanayay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmooyinka Aadan Yabaal, Masaajid Al-Guduud iyo degmada Al-Kawsar si kastaba ha ahaatee hadda waxaa la soo warinayaa in degmooyinkaas soo xusnay in maanta ay ka socdaan howlgallo culus oo ay wadaan ciidamada huwanta ah iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Dhexe guudaama maanta waxaa ka socda guluf ka dhana kooxda Al-Shabaab waxaana maalmihii la soo dhaafay halkaas laga dareemayay dhaqaaqyo ay xoojinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayna rabaan in ay ku soo afjaraan shabaabka ku dhumaaleysanaya qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Aadan Yabaal, Al-Kawsar iyo degmada Masaajid Al-Guduud maadaama halkaas ay yihiin fariismaha ay Al-Shabaab inta badan weerarada ay ku soo qaadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda u muuqda kuwa foojigan maadaama ay Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay ay xoojiyeen weerarada gaadmada ay ku qaadaan fariismaha ciidanka ay ku leeyihiin qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Masaajid Al-Guduud ayaa ugu dambeysay in ay Al-Shabaab weerar ku soo qaadaan taasoo ugu dambeyn Al-Shabaab u soo wargashay in muddo saacadaha ay gacan ku haynta degmada Masaajid Al-Guduud ay la wareegaan halkaas oo sidoo kale Al-Shabaab ay ka kaxeysteen ama ay nolosha ku qabteen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale Al-Shabaab halkaasi waxay ka qaateen hub iyo saanad ciidan halkaasi taalay maadaama ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaas weerarka gaadmada lagu soo qaaday ay isaga baxeen xerada halkaas ay ku lahaayeen haddii inta ila soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ina channelka like iyo CRT in si share gareysid si aan u helno saaxiibo adigoo kaleeta ah mahad ha ka gaar ayaan ku leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay saaxiib